uu iska leeyahay waxaa ka gatay nin la yiraahdo maxamed xasan cilmi oo isagu ahaa madaxii hore ee gaadiidka mashruucii by project oo Faysal Cali Waraabe oo hadda jooga ma arkaysa Somaliland gudoomiyaasha macnaheedu xisbiyada Somaliland kamid ah meeshuu ka shaqeyn jiray by project waxay ahayd meel 18 gobol Soomaaliya wax soo saarkeeda beeraha macnaheedu dadka oo dhan ay u imaan jireen oo ergada gobolada hadday tahay waqooyi galbeed awdal sool iyo sanaag bari nugaal galguduud mudug hiiraan shabeellada dhexe baay yani waxaan dhihi lahaa bakool gedo jubbooyinka iyo weliba gobolka banaadir meel beeraha sida wax soo saarka dalka ilaa wax soo saaraan ku noolayn loogu baran jiray bay ahayd okay saddex marka xarumood oo isgarab yaalla ayaa meeshaasi ku oollaa xarun waxay ahayd fidinta beeraha angaraariyaa la dhihi jiray xarunna tijaabada beeraha la dhihi jiray abuurka Soomaaliya oo dhan meesha lagu tijaabiyo mashruuc Mareykan ah oo Anderson iyo Graham niman Australian ah dawladda Siyaad Barre mashruuc qandaraas ay siisay ayaa meeshaasi joogay oo cadaan ah cagafyaa yaalay MF makiinadaha John Deere waxaasoo dhan marka inta gaadiid dhaqaaqa iyo baabuurtii casriga GMC-ga markaasi la keenay iyo Chanfar waxaa madax ka ahaa ninkan la leeyahay maxamed xasan cilmi oo beertan gadan doona meelna waxay ahayd dhalintii kacaanka Soomaaliyeed maxamed Siyaad Barre ayaa imaan jiray xaruntaasi la foole iyo ceel jaalle iyo Bonkay dhalinta kacaanka waxaa lagu tababari jiray dadka maanta dalka xukumaaya sida Xasan Sheekh Maxamuud sida ma arkaysa macnaheedu saraakiishii dalka soo xukuntay meeshaas ay wax ku soo barteen waa meesha ma arkaysa caruurtii kacaanka dhihi jiray subax iyo galab hooyadeenu waa October aabaheenu waa Siyaad ama waa kacaanka adeerkeenana waa calanka ayaa lagu barbaarin jiray wadaniyada marka meelna fidinta beerayba ahayd marka saddexdaasi xarumood meesha ku yaalay mashruuca by project meeshaas ku oola oo hadda dhow maareeye oo wasiirka beeraha ku magacaaban ayaan dhexdaas Bonkay waa uu tagay beerta dawladdan lafta gareen ay hogaaminayso iyadoo ay ka haynayso haddaba madaxii hore ee gaadiidka mashruuca by project lagu magacaabo ee gobolka Bay maxamed xasan cilmi ayaa 1980kii beertan waxa uu ka gatay nin lagu magacaabo cali macallin muuse cali macallin muuse waa nin beesha shabeelle ah shabeelle ma degaya meesha ha dhulka waa dhul eelay qabiilka eelay baa iska lahaa eelay markay soo dhex degeen ayaa dhulka la siiyey eelaygu marka macnaheedu la soo dhex dego ma arkaysa macnaheedu aad ka mid noqotid dhul bay ku siin jireen gobonnimaday qayb ka tahay iyadoo hadda UN-ka haddaa soo dhex degtid dhul aan lagu siinaynin laakiin laga yaabo meel kira ah iyo cunto kaliya in lagu siiyo okay ninkan beerta gadanaya mashruuca beeraha by project macnaheedu gaadiidka madaxda ka ahaa maxamed xasan cilmina waa nin hariin ah oo digil iyo mirifla ah marka dadku macnaheedu wax way kala gadan jireen lacagta beerta lagu gaday waqtigaasi 1980kii waxay ahayd 2200 oo shilin Soomaali ah maantay 2200 oo shilin Soomaali ah maantay kiilo bariisa ama 2 kiilo bariisa ma goyso laakiin markaas qiimaheeday lahayd lacag aad u badan bay ahayd very too much money lacag noocaas ay ahayd beerta waan idin tusi doonaa beertii marka sidaas loo kala gatay lacagta waxaa tiriyay beerta dhexdeeda ku tiriyay 1980kii nin lagu magacaabo Isaaq Aadan Nuur oo hadda jooga Bonkay jooga oo 100 sano xiray oo sanadkiisu 100 sano xagga u talaabay hadda uu jooga 100 jir ah ayaa lacagta tiriyay marqaatina waxa ka ahaa isaga kow Isaaq Aadan Nuur oo lacagta tiriyay kow waxa marqaati ka ahaa Cabdiraxmaan Isaaq Mursal oo isaguna dhintay maalintaasi macnihi marqaati ahaa saddex waxa marqaati ka ahaa Yarow Isaaq Mursal oo isaguna dhintay afar waxa marqaati ka ahaa Maxamed Cumar Macallin oo dhintay shan waxa marqaati ka ahaa Cabdullaahi Maxamuud Cabdinuur oo isagu geeriyooday waxa marqaati ka ahaa lix Cabdi Maxamed Cabdinuur oo hadda nool ayaa marqaati ka ahaa toddobo waxa marqaati ka ahaa
nuur xaanshi gaabow oo dhintay allah u naxariistay dhammaantood waxaa markhaati ka ahaa 8 maxamed aadan cali oo geeriyooday allah u naxariistay waxaa markhaati ka ahaa 9 sheekh xasan maxamed cabdi oo shiiqul boonkaay ah oo hadda nool oo ma arkaysa wadaad ah oo hadda jooga la soo heli karo waxaa markhaati ka ahaa 10 kuusow madnuur oo kumaandoosti milatarigii kacaanka ka midka ahaa oo hadda nool iyo weliba dad aad u fara badan oo wixii ku xeeran deegaankaasi deegaamadaasi ballaaran oo qaarna dhintay qaarna noolaa 1980kii sidaasi markay tahay dowladdii siyaad bare waa ay dhacday waa la kala fiigay ma arkayse dadkii yacni maxamed xasan cilmi madaxii mashruuca gaadiidka waxaa weeye waxay u soo guureen isaga iyo qoyskiisii magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya beertiisii waxa uu ku soo dhaafay isaaq aadan nuur oo 102 sano hadda ka badan nool oo jooga ayuu yidhi beertan adiga ayaan kugu dhaafay qofkaa rabtid macnihii u dhiib ha fasho badar ha ka soo saarto irsaaqad ha ka doonto injineer maadaama uu ahaa maxamed xasan cilmi xamar uu u soo guuray waxaa un laga war helay waagii horta intaanan ka boodin waxaa dalaal ka aha beerta xilligaasi markii la gadaayay nin ay dhahaan xaanshi gaabow baxar oo hadda dhintay ayaa dullaal ka ahaa markii 1980kii cali macallin muuse beerta laga gadaayay okay waagii marka shariif xasan sheekh aadan oo 6 gobol la kala gooyay 3 gobol uu reebay xasan sheekh maxamuud xukunka teeramkii hore uu qabtay waxaa laga war helay cali macallin muuse oo beertii iyadoon la ogeyn beeranaya waa ninkii 1980kii beerta laga gaday waxaa la arkay isagoo beertii macnihii abuur ku ridanaya oo beeranaya oo shaqaale geliyey dadkii deegaanka qayliyey marka meesha deganaa war sidaan maxay ahayd waxay u qayla dhaamiyeen ma arkayse macnihii maxamed xasan cilmi madaxii hore ee gaadiidka oo xamar ku nool waxay dhaheen sidaana taagan isla markiina markii dadka deegaanka ay ku kaceen oo ninkii lagu dhaafay isaaq aadan nuur uu beertii ka celiyey cali macallin maxkamadda gobolka baay oo markaasi shariif xasan maamulkiisii uu ka talinayay taliya shubna uu ahaa taliyaha qaybta balayska gobolka baay ayuu ku dacweeyey yuu dacweynayaa ma arkaysa macnihii ninkii beerta iska lahaa iyo ninkii ka hor istaagay maxkamaddaa looga yeeray ninkaas xamar joogana soo galaa beerta iskale way soo galeen beertii wixii markhaatiyaal noolaa iyo deegaankii oo dhan baa la keenay maxkamaddii waxay saartay guddi 3 guddi macnii waxay saartay yacni guddi ay ka soo saartay dadka beerta 80kii laga gaday oo hadda ma arkaysa macnii dib u boobaya guddi ay ka soo saartay dadka beerta iska lahaa ma arkaysa macnii gatay 80kiina guddi ay ka soo saartay maxkamaddana guddi ay iska soo saartay saddexdaasi guddi ayaa la isku daray waxaa la yidhi baaris ha la galo baaris sal ballaaran baa la galay markhaatiyadiyaa la keenay dadkii deegaankaa loo tegay maxkamaddii waxay soo ogaatay cali macallin muuse beertan inuusan lahayn 1980kiina macnihii si xalaala looga gatay shilin 2200 oo shilin soomaali ah oo markaasi 10,000 oo dollar u dhigantay haddaysan milyan gaarin ayaa ma arkaysa lagu kala gataa la soo cadeeyey maxkamaddii xukun ay goysay maxkamaddii waxay xukuntay in cali macallin muuse beertaasi dambe lagu arki karin aanu lahayn dulmi uu ku socdo isla markaana xukun bilaa racfaan ay goysay xukun aan racfaan lahayn baasta way dhammaatay waa baarnay xukunada qaar racfaan ma leh xukun bilaa racfaan ay goysay dukumeentigana waxaa la siiyey maxamed xasan cilmi mashruucii hore ee beeraha gaadiidka ninka madaxda ka ahaa oo hadda magaalada muqdisho ku nool sidaasi markay tahay oo sheekadu meeshaasi ay joogto ninkan ma arkaysa macnihii cali macallin muuse waxaa qarash garaynayay wiil nin abtigiis oo dibadda ku nool oo aan ka warqabinba dalka muddo isagaa u sheegaya dhulka maadaama dahab uu noqday
qudaaraan saaranaynaa beertu waa beer ku macaan cambaha muuska babayga lagu tabci karo waagii hore qudradda dhoobay uga imaan jirtay dhulkan laakiin muhiimadda iyo macaanida dhulkay dareemeen dadka in motor laga qodi karo in ma arkaysa macnaheedu qudaar laga soo saari karo maadaama marka dhulka sidaas uu macaanaaday abtigiisu wuxuu u sheegay dibadda ku maqan beertii aan soo ceshanaynaa dhaqaale igu soo shub hanti aan ka samaynaynaa marka dacwadii mar haddii ma arkaysa looga guulaystay abtigii waxaa loo sheegay in dacwad ay gashay beertii isla markaasna macnihii cali macalin muuse looga adkaaday oo baadil uu ku socday abtigii marka wuu soo habaartamay wuxuu yidhi niyow dhul aadan adigu lahayn oo mar hore aad gadatay 1980kii aad gadatay maxaa aniga macnihii waqti iiga gelisay qarash aad iga gelisay wuu habaaray habaarkii wuxuu dhaliyey maalmo kadib inuu qashin xaabiyo isla markaasna uu ku dhinto maalmo gudahooda maxkamadda markay xukunkaasi goysay abtigiisa uu soo habaaray cali macalin muuse qashinkuu ururiyey waa uu ku dhuftay waa uu geeriyooday aakhiruu aaday waay sidaasi markay tahay allah u naxariisto hadduu geeriyooday uu dhintay ma arkayse waxa uu ka tegey laba bahood labadii bahood uu ka tegey ayaa macnihii waxay yidhaahdeen beerta haddana ma arkayse macnihii haddii dhanka dowladda ay noqotay waxaanu ku dacwoonaynaa dowladda duurka shabaab si aan u heli karno marka bahdii weynayd waxay dhahday waxaan waa ceeb aabbaheena ceebtaan galay waa uu ku geeriyooday ma arkayse xaqdaruu sameeyey sidaan annaga kuma jirno dhul aabbaheennu 1980kii uu gatay oo lacagteeda aan cunnay maantay 30 sano kadib inaan dhahno annagaa iskale oo macnihii aan ku indha adeegno waa aakhira beel waa adduunya beel markhaati bay leedahay dadkii way nool yihiin tuulooyinkii way joogaan boonkaay ummaddii joogtay way joogtaa ismoodnay ummaddii joogtay way joogtaa niman yahow sharaf iyo karaamo ma ahan sidaan